waxaa maanta aanu anbabaxayaa dalka Jordan oo aan kaga qayb geli doono shirka madaxda carabta oo lagaga hadlayo arrimaha isbeddelka cimilada adduunka iyo deegaanka. sidaynu ognahay cimilada adduunku aad bay hadda isu beddelaysaa, taasoo ay keentay dikhowga ku socda cimilada, kana dhasheenna abaaraha soo noqnoqda, iyo deegaankii oo xaalufinta dhirta iyo biicadda lala dagaalamaya ay keenayso inay saameyn ku yeelato xoolaha, nolosha, dhaqaalaha dalka. marka shirkaa waxaa lagaga hadlayaa waddamada carabta iyo sida ay isaga kaashan karaan in deegaanka wax laga qabto, in isbeddelka cimilada adduunka wax laga qabto. hay-adaha caalamka ee ku shaqada leh wax ka qabashada deegaanka iyo cimilada adduunkuna ay ka soo qayb galayaan, la iskana kaashanayo sideebaa loo wanaajiyaa deegaankeenna, ugu noolaana biicad iyo deegaan fiican oo aynu ka shaqayno. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha isbeddelka cimilada adduunka uu aadka u saameeyey, meelaha deegaankii oo isbeddelaya, ha noqoto dhuxushan dhirtii la xaalufinayo, dhuxusha laga dhigayo, ha noqoto deegaankii oo aan laga shaqaynin oo biyihii la kaydinahayn, biyihii mararka qaarna fatahayaan, mararka qaarna ay abaaro ba'ani ku dhufanayaan. marka howlahaasoo dhan waxa weeyaan kuwa ay sababayaan isbeddelka cimilada adduunka iyo deegaankii oo dhibaatooyin ku imanayaan. arrimahaasaa lagaga arrinsanayaa iyo shuruucda loo baahan yahay, nidaamka loo baahan yahay dal waliba inuu sameeyo. khayr baan rajaynayaa insha allahu.